السلام عليكم أصحابتي soo dhawaada sheekada ninkan weeraray jimcihii la soo dhaafay xarunta hay'adda dowladda Mareykanka u qaabilsan cudurrada faafa xakameyntooda iyo ka hortagooda oo CDC loo soo gaabiyo maxay tahay sababta xarunta CDC uu ninkan u weeraray ninkan dhalinyarada ah oo cadaanka magaciisa waxaa la yiraahdaa Patrick Joseph White waa nin 30 jir ah jimcihii la soo dhaafay ayaa aabihii intuu 5 qori ka soo xaday ayuu waxa uu soo aaday xarunta hay'adda CDC-da oo ku taala magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ninkan meel farmashi ah oo CVS la yiraahdo ayuu soo galay kadibna rasaas ayuu ooda kaga qaaday xarunta hay'adda CDC-da oo dowladda Mareykanka u qaabilsan xakameynta iyo waliba ka hortagga cudurrada faafa boolis ayaa markiiba soo gurmaday ciidamo kala duwan ayaa yimid ninkaasi wuxuu dilay askari boolis ah oo kamid ah askartii soo gurmatay oo waliba askari madow ah oo magaciisa la yiraahdo David Rose ninkaas oo waliba xaaskiisa uuray lahayd 2 caruurana ay u joogeen laakiin waxa la yaab noqotay ninkan qoryaha shanta ah oo aabihii ka soo xaday maadaama waalidiintii uu la noolaa isla markaana uu ku xarqiyay 6 dhisme oo kamid ah dhismayaasha xarunta hay'adda CDC-da in uu riday 500 oo rasaas ah inuu riday oo shantaasi qori ka riday laakiin halkaasi askari ayaa ku dhintay isaguna markii dambe waa uu istilay haddaba maxay tahay marka ninkan sababta hay'adda CDC-da uu u bartilmaameedsanayay ninkan qoraallo laga soo helay gurigiisa markii la baaray maadaama waalidiintii uu la noolaa ayaa waxay muujinayaan ninkan inuu si aad ah uga caraysnaa talaalka cudurka coronavirus-ka uu sheegay in uu depression uu ku abuuray isla markaana uu ka dhigay suicidal qof ku fikiraya inuu isdilo marka talaalka cudurka coronavirus-ka ayaa ninkan uu ka soo horjeeday ama cudurkii coronavirus-ka ee intii u dhaxaysay sanadihii 2020 ilaa horaantii 2023 wadankan Mareykanka iyo guud ahaanba caalamka ka jiray marka wuxuu yiri waxaan doonayaa shacabka inaan tuso sida aan uga soo horjeedo talaalkii cudurka coronavirus-ka marka waxa uu yiri cudurkaas sida muuqata ninkan waa uu qaatay marka waxa uu cudurro fara badan oo hayay ayaa waxa uu leeyahay waxa sabab u ah talaalkaasi aan qaatay ninka hadda wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka in Trump uu magacaabay oo la yiraahdo Robert F Kennedy waa nin isagu anti vaccine oo talaalka ka soo horjeeday talaalka coronavirus-ka xitaa uu kamid yahay talaalo fara badan ay kamid yihiin waa nin ka soo horjeeday sidaas ay tahay maadaama ololihii doorashada oo madaxtinimada uu ka haray Trump oo taageeray Trump waxa uu ballan qaaday in dowladdiisa uu ku dari doono wasiirka caafimaadka ayuu ka dhigay marka hadda Robert F Kennedy waa uu tagay Atlanta xaruntii CDC-da waa uu booqday hadda toddobaadkii la soo dhaafay oo idil waxa ay ka shaqeynayeen gurigooda shaqaalaha hay'adda CDC-da oo ma aysan imaanin iyaga naftooda mudaharaadii sameynayeen waxay leeyihiin ninkan sababta ku sababtay inuu hay'adda CDC-da soo weeraro waxa kamid ah wasiirka hadda caafimaadka oo isaguna talaalka ka soo horjeeday xataa ninkan markii shootinka uu socdo toogashadu ay socotay aabihii ayaa 911 soo wacay oo dhahay waxaan u malaynayaa wiilkayga inuu yahay qofka in toogashadaasi geysanaya waxaan u baahanahay caawinaad marka already ninkaasi wuxuu fali karayba waa uu falay ugu dambeyntiina isagii waa uu istilay laakiin markii baaritaano lagu sameeyay waxa la ogaaday rasaasta uu riday sida aragtaan dhismayaasha qaar kamid ah daaqadahooda oo miraayada ah xabadihii ayaa ka muuqda 500 oo rasaas ayaa 6 dhismo oo kamid ah dhismayaasha xarunta hay'adda CDC-da uu ku riday laakiin halkaasi askari ayaa ku geeriyooday isaguna waa uu isdilay labadaas qof oo kaliya ayay wax ka soo gaareen askariga uu dilay iyo asagii oo isdilay isla markaana ma jirin cid kale oo ku dhaawacantay amaba ku dhimantay ugu dambeyntiina isagii waa uu istilay marka arintaasi la yaab kale ayaa rabay inaad la socodsiiyo aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo